xaafadda Arna ee magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa fiidnimadii xalay oo Axad ahayd waxaa ka dhacay dil argagax leh iyo sidoo kale dhaawac qof kale loogu geystay. Wiil dhalinyaro ah oo da'diisa lagu sheegay 20 ayaa lagu dilay dibadda gurigiisa halka sidoo kalena xaaskiisa dhaawac loogu geystay. Booliiska ayaa ku waramayo in lagu soo wargeliyay 10:26 daqiiqo ee xalay dhacdadan ka dhacaysa mid ka mid ah dibadda guryaha ku yaala xaafadda Arna ee magaalada Bergen. Waxa uuna sheegay booliiska in ay gaareen 20 daqiiqo kadib goobta halkaas oo ay ugu tageen qofkan oo aad dhaawac u ahaa. Ambalaastana ay isku dayday in ay badbaadiso ha yeeshee daqiiqado kadib uu goobta ku geeriyooday. Waxaana lagu soo waramayaa in isla goobta lagu dhaawacay xaaska qofka geeriyooday oo ahaa nin lagu sheegay 20 oo ka soo jeedo waddanka Afghanistan Norwayna soo galay 2021. Taliyaha howlgallada booliiska Terje Magnusson ayaa sheegay in ay goobta markii ay gaareen uu ka baxsaday qofka dambiilaha ah ee dilka iyo dhaawaca ka geystay meesha. Waxa uuna sheegay in boolisku ay sameeyeen baaritaano xooggan iyaga oo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska iyo eeyaha dheereeyo. Sidoo kalena waxa uu sheegay in goob walba oo ka mid ah magaalada Bergen ay dhigeen checkpointyo ay ku baarayaan dadka si ay u soo qabtaan gacantana ugu soo dhigaan dambiilahan baxsadka ah. Ha yeeshee waxa uu sheegay in aysan ilaa iyo hadda ku guuleysan in ay soo qabtaan dambiilahan oo uu weli baxsad yahay. Booliiska oo 10kii subaxnimo ee saaka oo qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in ay weli ku jiraan baadigoobka ninka baxsadka ah ee dilka geystay iyo dhaawaca qofka kale u geystay. Waxa ayna sheegtay qareenka booliiska Inger Lise Høiland in ay weli baaritaanadu socdaan oo ay ku daba jiraan dambiilahan baxsadka ah ee dilka u geystay 20 jirkan afadiisana dhaawacay. Waxa ayna intaa ku dartay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka codsanayaan in ay la soo xiriiraan cid kasta oo warbixin haba yaraatee ka hayso dambiilahan baxsadka ah. Waxa ayna ka codsadeen booliiska dadweynaha gaar ahaan dadkii socday eriyada uu dilkani ka dhacay ama gawaarida kaamirada leh iyo cid kastoo xog haba yaraatee ka heli karto in ay booliiska la soo xiriiraan si ay u adeegsadaan cadeymaha ay hayso. Waxa ayna intaa ku dartay qareenka booliiska in haweeneyda xaaska u ahayd ninka la dilay ay iyadu dhaawac qabto ha yeeshee dhaawaceedu uusan ahayn mid halis ah oo ay ka soo kabsanayso. Waxa ayna intaa ku dartay in ay jeclaysanayaan marka ay soo bogsato iyaduna in ay waraysi la yeeshaan oo ay ka xog wareystaan waxa dhacay. Booliiska ayaa sheegay in aysan waxba ilaa iyo hadda ka ogeyn sida ay wax u dhaceen iyo sababta keentay, iyagoo sheegay in ay ku daba jiraan ilaa ay ka soo qabtaan dambiilaha dilka iyo dhaawaca geystay ee ku sugan magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. Halka warkiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.